waxaa qabsoomay shirkii caadiga ahaa ee golaha wasiirada ee khamiislaha ahaa. shirka waxaa shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. shirka ajandayaashiisii waxaa ka mid ahaa marka hore wasaaradda amniga waxay soo bandhigtay warbixinta amniga dalka guud ahaan halka uu marayo, gaar ahaan caasimadda dalka iyo isbedelada ka dhacay. sidoo kale waxaa warbixin lagaga dhageystay wasaaradda waxbarashada oo ay soo bandhigtay imtixaanaadka guud ee dalka laga qaaday iyo sidoo kale heerka waxbarasho ee tayada dalka halka ay marayso ayna u baahan tahay in sare loo qaado. sidoo kale wasaaradda caafimaadka waxay aad u soo bandhigtay caafimaadka dalka guud ahaan iyo guulihii la gaaray ee caafimaadka iyo sidoo kale baahiyaha jira. sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradaha gaashaandhigga iyo amniga ay ku soo bandhigeen tirakoobka laga sameeyay ciidamada militariga iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed. wasaaradda gaashaandhigga waxay soo bandhigtay tirakoobkii iyo sidoo kale diiwaangelinta caafimaadka lagu sameeyay ciidanka. wasaaradda amnigana waxay soo bandhigtay tirakoobka lagu sameynayo dib haweynta ciidanka booliska Soomaaliyeed. sidoo kale shirka golaha maanta waxaa lagu ansixiyay hubinta iyo tirakoobka shaqaalaha dawladda oo ay soo bandhigtay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo lagu ansixiyay shirka maanta ee golaha wasiirada. sidoo kale waxaa lagu ansixiyay xeer nidaamiyaha sidoo kale la ansixiyay xeer nidaamiyaha Machadka Caafimaadka Soomaaliya oo ay soo bandhigtay wasaaradda caafimaadka.